qola gaar ah yaqaan ma waa sulx guudan ka hadlayna wixii kale tan markaas ku xalliyo shariicada islaamka si qabto ama xeerarka kale oo shariicada islaamka ka hor imaanaynin iyo baarlamaan ama majlis shura magaca doonto u bixi wax un dadka markii ay mushkilad guud soo wajahdo ay u isticmaalaan inay uga doodaan go'aan ka gaaraan iyo fulinta qola fulisa waxaas ma aragtay laga dooday oo go'aanka laga gaaray hada dib dad qoladan fulinta aysan ma aragtay tixgelinaynin qoladan ma aragtay bulshada matalaysa oo shacabku soo doortay haddaysan ka amar qaadanaynin waxaa dhacaysa in qolada fulinta wixii markaas ayaguna ay dantooda eriyadaan oo danta ummadda aysan eriyan madanigan wuxuu lama horaan u yahay wixii maxkamadda goyso ama ma aragtay majliskaas beeshu uu leedahay ama deegaanku uu leeyahay baarlamaanku uu leeyahay waxay go'aamiyaan inay fuliyaan kuwaan marka iskaashadan la fuliyo si noola muuqata hadda anaga dadka tuulooyinka iyo degmooyinka iyo xaafadaha barnaamij noocan haddii laga sameeyo waxaa uu taageero ka helaya dadka qurba jooga oo laga rabo inay taageeraan because amni kale ma imaanayo haddaysan jirin wax oo amniga suga waxaa la yidhi yani allahu mustacaan daadadka oo webiga ka yimaada qofka haddii uu maxaa la yidhaahdaa haddaadan ka moosamo biyuhu waxay u fatahaanaa la yidhi dhanka aanan laga moosan marka waxaa qaabka sahlaya in dadku ay ka moostaan dhibaatooyinkii sahlayaan marka amni daradii waa laga hortagaya meesha haddii ammaan tahayna ganacsiga imaanaya shaqaale helaya waxbarashadii caafimaadkii wixii kala furfurmaya dhibka toosanna waa laga magan galaya si dadban mushkiladda guudna waa ka hadli doonaa mar dhow sida arrintan ugu qaaraami doonto marka hadee qolyahan dowladda kumeel gaarkaana saan maqlay hadda barnaamij muracadda usoo saaraa jiro oo waxay leeyihiin barnaamij laba tixana ah oo ay leeyihiin mad beelaha in la heshiisiyo ay dadkii deegaamada gobolada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka markii heshiiyaan ay dhistaan maamul ammaankooda suga ayagana u adeega marka ma ka hor imaanayso barnaamijkan dowladda kumeel gaarka oo barnaamijkeeda ma ka hor imaanayo oo barnaamij wuxuu noqonaya in fact macnaheed ku toosan noqonaya because dadka ayahoodii ka tashanayaan dowladda kumeel gaarkan dowlad federaal waa tuulooyinka degmooyinka iyo gobolooyinka maamulada ay samaystaan oo isku tagay unbaa dowladda ay tahay maxkamadahan hadda dadka haddii ayahooda ka tashadaan oo dhibaa jiro qoysaskii dhibaa haystee dadkana qurba joogga ama dareemi karnee dadka gudaha jooga waa dareemi karaan haddii dadku ayahooda ka tashadaan oo wixii un markaas ayagu dhibka toosan uga magangeli karaan dhibka laabana ay uga magangeli karaan hadda maxkamadu iyo qoladan kale oo shabaabka inay diidayaan ma u malaynaayo bardu waxaa ku khasbanaanayaan oo ayba u badan tahay inay taageeraan marka hadda beesha caalamkuna waa taageeraysaa oo sida aan maqalna haddaba arrinta bakaaraha sida laga arkay dadku inay ayagu ayahooda ka tashadaan dadkoo dhan wada taageeraya dadkuna taas inay kartaan oo ku dadaalaan oo xali Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo biyo sacbahaaga looga dhargaa oo nin kale maaragtay wuxuu sameeyay meel laguna gaarayo allahumma musta'aan dadka deegaanka ayaguna sidaas oo kale inay taageeraan war wixii ayagu ay doorteen oo wiilashoodii iyo gabdhahoodii iyo ciidan oo maxkamadahoodii oo maaragtay golihii maaragtay goynayay golo ay wax ka go'do laho golo fulineed laho wixii lagu go'aanka lagu gaaray ka shaqeynayo oo guud ahaan ka shaqeynaya amnigii iyo horumarkii bulshada ka shaqeynaya waa wax oo lagu farxo oo dhibkan haddana haysto looga bixi karo marka dadka waxaan sameynayana waa inay noqdaan dad farsamo yaqaana ah oo yaqaana farsamada iyo xeerarka oo dhaqamiga ah waxaa kamid ah maaragtay odayaasha dhibbo badan waxaa jira dalka oo hadda odayaashu aysan xalin karin ayaa jira marka waxaa loo baahan farsamo yaqaana dadka farsamo yaqaanadaana hadee dadkii hadee maxkamadihii shariicada islaamka iyo shariicadii mana isdiidayaan wixii xeerkii oo ka hor imaanaya xeerkii diinta islaamka ka hor imaanaya dadku dad muslim oo ma qaadanayaan waxaa loo baahan yahay maaragtay diintiina aan diidaynin dhibkii dalka jirayna oo beelaha iyo qoysaska haystayna kala furdaaminaya ayaa loo baahan yahay diintu in wax wanaaga dadka ku jiro waaye wax oo hadda maaragtay dadka dhibkooda ma aha marka mushkiladda imaanayso marka waxay tahay haddii sidaas la yeelo mushkiladdii haddii xoogeystaan ururadan haddii xoogeystaan oo tuulo walba iyo degmo walba iyo gobol walba haddii maamul noocan uu ka xoogeysto hadda waxaa soo baxaya oo heer gobol heer qaran imaanaya xoogag matalaya dadka rabitaankooda
oo mudnaantoodu koowaad ay tahay dadka mudnaantiisa kuwaas marka waxay noola muuqataa inay si dadban iyo si toosan ugu qaaraan karaan mushkiladda dalka haysata heerka qaran sidii allahu mustacaan xal loogu heli lahaa inta karaankooda ah wixii aan la awoodi karinna in ilaahay la baryo inuu arrimaha uu kala fududeeyo mushkiladdan muddo dheer soo jiitamaysay oo macnaha ma u muuqata hadda in mid dhowaan furfurmayso laakiin saan haddii ay jirto oo dadku hadda meel ku neefsado uu haysto si dadban ama si toosan ayaa loogu qaaraami karaa in mushkiladda heerka qaran dalka ka jirta la furdaamiyo dhibkaan hadda dadka haysto hadduu abaaraha ka imaan lahaa hadda maaragtay report waxaa jira maanta akhrinayo oo dhahayo macnaha waxaa soo socda xilliga oo abaar badan soo socotay sicir bararkan jiro sicir bararkan in la fahmo way ma ahay mid Soomaaliya kaliya ka jira ilaa 30 gobol oo ka jira caalamka oo dhan waxaa ka jira maaragtay barwaaqadii lagu jiray 10 sano la soo dhaafay waa laga sii baxooyaa xilli abaaraha la geliyo caalamka oo dhan marka waa dad badan waxay arkay ganacsatada ku eedeynaya wax ganacsatada lagu eedeeyma bardo hadda arrintaas hadda ma aha arrinta rabnay aan ka hadlo ama kaarta rabnay ka hadlo marka dhibkaan dadban oo ah dadka samafalayaasha dalka ka tagaya iyo dadka ma aragtay ganacsatada oo dalka ka tagaya taasna saameynta ay ku yeelanayso waxba maaragtay nolosha qoyska iyo ku imaan laho aanan imaanaynin waayo mid dadban oo rabnay inaan hoosta ka xariiqna iyo midaan toosan iyo qaabkan oo ah qaabka maaragtay lagu gaari karo in kaalmo degdeg la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed kaalmada dadka shisheeyaha keenayaan gudaha keenayaan ma aha mid maaragtay meel lagu gaari karo Soomaali maxamed barra umar ninkii gacan sabaxaaga kuwana looga dharga hadda qosolkaas waa asaas iska ah marka asaas inoo muuqata hadda inay warku yahay warkii inaan badana ma aha mahadsantiin